madaxweyne dhuumo maalintaas iska maqnaaw ha ka aqli yaraan saaxiibka maxamed mursal cabdiraxmaan telefoonada iska danso ha imaan adigoo ceebaysan oo dhulka lagu jiidayo mar rabna inaan aragno kulan wanaagsan daawadayaasheena iyo dhageystayaasheena meel kasta oo aad nagala socotaan halkan waa goobjoog waxaanu eegaynaa waxa dalku uu galay doorasho iyada oo maalmo kaliya ay naga harsan tahay in codeyntu ay dhacdo xilligan waxa socota khudbad jeedinta murashaxiinta u tartamaysa qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya waxa kamid ah murashaxiinta taagan madaxweynayaashii hore dalkan u maamulay Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale ra'iisul wasaarayaal dalkan maaragtay xil ka soo qabtay iyo madaxweynaha hadda xilka maaragtay si haya madaxweyne Farmaajo arimahaas bal sida ay wax u socdaan iyo natiijadu waxa ay noqon karto waxaanu ku casuulnay wareysigan Axmed Nuur Guuleed oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed Axmed Nuur marka hore soo dhawow marka xigta waxaan rabaa dalku wuxuu ku jiraa xilli doorasho maalmo kaliya ayaa naga xigta maaragtay waqtiga cod bixinta sidee marka u aragtaa sida ay wax u socdaan bismillaah alxamdulillaah OSR waa mahadsantahay adiga iyo bahda telefishinka iyo raadiyaha goobjoog waa ku mahadsantihiin inaan halkan ugu soo dhaweysiin waa salaanta kadib sidaa la socoto waxaa dalka ku jira xilli doorasho ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo ilaahay hanoo dooro madaxweyne wadankan 5 sano iyo 3 bilood si ka duwan ku maamulo allaha noo dooro runtii dalku afli baa ka soo baxay la dhihi karaa qatar uu galay aan la saadaali karin oo la dhigilsan karin maxaa yeelay waxaad xasuusan tahay hal sano ka hor wadankan halka aan joognay bishii April 2021 waxaan joognay Maxamed Farmaajo oo labo kala doorta soo istaagay kow dagaal sokeeye ama in dictatorka la aqbalo labadaba ma fududa dagaal sokeeye waa ogtahay dhibka uu leeyahay 30 sano nagu qaatay inaan halkan soo gaarno dictator in la aqbalana waa ka xuntahay si taas looga badbaado runtii waxay u baahnaatay xirfad aad u sareysa waa la fikiray waa la tashaday qaab waxa la keenay marka farihiisa looga bixiyo dalkii aan la burburin maanta ilaahay mahadiis waxaan joognaa doorasho 4 maalmood aan naga xigto waqtiga la dooran lahaa qaladkii la galay oo kale in laga fogaado ayaan runtii soo jeedi lahay oo aan gacanta naloo gelin dictator ama kan ama mid la mid ah inaan wadanka gacanta loo gelin oo runtii aad iyo aad looga taxadaro qofka la dooranayo ama qofka codka la siinayo hal ku dhiga madaxweynaha maaragtay oo xilligan ku ololeynayo waxa waaye isbedel doonka socda hal ku dhigaas maxaad ka fahantay sidee u aragtay madaxweynuhu inuu is sharaxo oo yiraahdo maanta markaan rabaa talada wadanka inaan qabto ayaa runtii wax aad loola yaab noqotay sababtu waxay tahay kelmadda hadda uu isticmaalay ee uu leeyahay isbedel doon erayga isbedel badanaa waxa isticmaala hogaamiyaasha siyaasadda ama ganacsiga marka hogaamiye cusub oo organization ku soo biirayo ayaa la yiraahdaa isbedel wadaa iyo waxaan rabaa inaan wixii hore wax ka bedelo dariiq hore lagu socday mid ka qurux badan oo ka wanaagsan aan hayaa halay doorto ama halay magacaabo markaas ayaa la isticmaalay erayga isbedel hogaamiyihii joogi jiray isbedel ma sheegi karo waxa laga rabaa inuu sheegto milestones waxaba hore uu soo qabtay inuu ku faano oo yiraahdo taskiska iyo hawlihii la ii diray iyo ka badan aan qabtay intaan soo kordhiyay wadanka heerkaasaan ka soo qaaday heerkaasaan soo gaarsiiyay inuu yiraahdo ayaa laga sugaya Maxamed Farmaajo nasiib darro wax uu ku faanin karo lama hayo iyo wuxuu sheegi karo saas ogeed wuxuu la mid noqday siyaasiyiinta cusub ee hadda doonaya inay xilka qabtaan is iibinayo ee sheegayo wax cusub inay qaban doonaan heerkaas oo kale ayuu soo istaagay maadaama wax uu sheegi karo oo hadda miiska la saari karo uu sahayn labo waxaad moodaa waa shamsi ka carar inuu meesha ku jiro waa taqaana markii wareegga koowaad la soo gaaro erey waxa la isticmaalaa la yiraahdo isbedelka loo hiiliyo marka si uu dadku u jahwareeriyo marka la yiraahdo isbedelka loo hiiliyo ayuu wuxuu rabaa inuu yiraahdo isbedelkan kamid ahay marka taasna waxay la tahay xildhibaanada Soomaaliyeed waa dad aad u fahmi kara isbedelka waa la yaqaanaa kii jooga isbedel ma aha madaxweyne Farmaajo 5 sano hadda uu joogay waxna waa qabtay waxna ma qaban waxna waa ka halaabeen wuxuu sheegay inuu musharax yahay shahaadadiisii waa qaatay inuu hadal jeediya la sugaya adiga sidee u aragtaa inuu musharax noqdo aniga waxaan dhihi lahaa madaxweynaha waa muwaadin Soomaaliyeed xaq u leeyahay inuu murashax noqdo inuu tartamo xaq u leeyahay wuxuu lamid yahay murashaxiinta kale
laakiin wuxuu ugu duwan yahay su'aalo badan oo ka jawaabid u baahan intuusan dadka wax weydiisanaa laga rabaa madaxweynuhu inuu ka jawaabo rikoorka madaxweynahan u hayno mid wanaagsan ma ah oo sidiisa lagu qaadan karo waxaa la rabaa inuu raaligelin ka bixiyo dhacdooyinka dhacay 5 sano iyo 3 bilood ee la soo dhaafay ee talada wadanka isagu u hayay dhibka dhacay inuu dadka uga jawaabo si mar kale looga fikiro in cod la sii karo iyo in laga foojignaado salaada uu soo qaato waxaa la dhiibay muwaadin Soomaaliyeed ayaa waxaa loo dhiibay dalka Itoobiya aan dariska nahay waa qalbi dhagax madaxweynuhu arintaas ilaa hadda kama jawaabin wuxuu rabaa isagoon ka jawaabin oo waxba ka dhihin in sidaas looga socdo wuxuu weeraray Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo siyaasiyiinta iyo ama murashaxiinta kamid ah askartiisina la sheegay in kobaha lagu aasay iyadoo ilaa hadda aan laga jawaabin oo uusan waxba naga dhihin ayuu rabaa madaxweynuhu inuu yiraahdo hal laga socdo hal iska kay doorto business as usual inuu ka dhigo ayuu rabaa duulaan ayuu baydhabo ku qaaday dad ayaa ku dhintay cid ka hadli kartaa la waayay wakiilka qaramada midowga Soomaaliya u joogay Nicholas Hayson markii uu ka hadlana waa la eriyay arintaas madaxweynuhu ilaa hadda waxba kama dhihin dhibka runtii dhacay 5 sano wax hal qoraal ama hal meel lagu soo koobi karo ma aha go'doomintii Kismaayo kamid ahayd duulaankii maamul goboleedyada uu ku qaaday ayaa isaguna u baahan inuu wax ka yiraahdo oo runtii aan laga gudbi karin 3 maamul goboleed waa qabsayay labana waa iska dhiciyeen waa u gali waayay xayiraad ayuu madaxweynayaasha hore saaray oo weeraro lagu qaaday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Jawaari ayaa la weeraray oo xilkii laga eriyay ama gudoominimada laga qaaday si aan sharci ahayn kadibna la magacaabay nin magacuyaal ah oo masawir ah oo isaga wuxuu rabo kaliya ku shaqeeyo ayaa la magacaabay arinta kale oo runtii aan la dhayilsan karin ee Maxamed Farmaajo oo ku dhaqaaqay muddada uu xilka hayay waxa kamid ah wuxuu aasay criminal organization oo u bixiyay wax la yiraahdo xoogagga wadaniyiinta laakiin Soomaalida u taqaano CBB kuwaasoo dhaqaale badan lagu bixiyo canshuurta gobolka Banaadir la siiyo shaqadooduna ay tahay inay caayaan siyaasiyiinta iyo inay been ku amaanaan Maxamed Farmaajo iyo kooxdiisa arintaas marka ma sideedan ku haysanayna oo ku qaadanayna madaxweynuhu ay nooga jawaabtid waxa iyadoo dhacday muddada uu xilka hayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa assassination lagu dilay aniga gobolka waa tagay waa aqaanaa 3 layer oo security ah ayaa albaabka gobolka taagan oo security ark la maraya jirta intaas ayaa waxa soo dhaafay waliba security arkigu wuxuu leeyahay qalinka jeebka ku jira waa qayrana hadii aad la gasho gobolka Banaadir qayb yar oo metalaha ku jirta intaas oo security layer ah ayaa inta laga gudbay ayaa gabar sida 5 kiilo oo qarax ah waxa la ag fariisay gudoomiyaha gobolka arintii ilaa hadda wax jawaab laga ma hayo aad iyo aad looga hadlay midowga murashaxiinta ka hadlay siyaasiyiin badan ka hadlay qoyskiya ka hadlay nasiib darro kale waxay noqotay kaamiradi CCTV-gi wax duubaysay ayaa leeyahay maalintaas waa dansareed sababta loo damiyana lama yaqaano lama dhihi karo qaraxii ku burburtay maxaa yeelay hadii DVR lagu duubana oo system kale isticmaal jiray meel kale oo lahaa laga heli lahaa haddana badanaa waxa la isticmaalaa cloud based oo wadan kale yaal ay wax ku duubtaa oo waa la heli lahaa lama weey karo arintaas marka waxay sababtay markii la yiraahdo la baaro oo wax laga ogaado waxa soo baxday xog ah inay wax ka ogeyd ama ay wax ka sheegi karto gabar ka tirsanaa daba sugidda waa ekraan tahliil oo ay ka baqeen inay xogtaas dusiso ama ay fidiso gabadhii ayaa iyadan la waayay waxba jawaab laga ma bixin taliyaan daba sugidda oo ah ninka lagu tuhmayay wuxuu qabsaday waxaan u gudbinayaa arintaas guddigii amniga qaranka muddo foga ka soo wareegtay ilaa hadda waxba looma gudbin qaabka loo dilay wax lagu qanci karo ma noqon ay sheegeen daba sugiddu shabaab dishay dhahan qaabka ay shabaab u dilaan waa la yaqaanaa inta badan hebel qaraxuu ku dhintay hebel wuxuu tagay meelaha magaalada ka baxsan ama cirifyada magaalada oo bistoolada dishay hebel hotel lagu weeraray dhacdooyinkaas waa dhacdooyinka commonka ah aan naqaano ee shabaabku ay inta badan wax ku dilaan dhacdooyin aan noocaas ahayn ay sheegeen oo shabaab dishay jawaab intaas dhaafsiisanna aan ilaa hadda lahayn marka dambiyo isku sidkana jira gabadhii iyaduna ka daba qaadatay ee u heelisay xaqi ikraan inay raadiso u istaagtay aamino ayaa iyadana maqan aan la aqoonin waxa iyadana nasiib darro ah oo kayska ikraan markii laga hadlo soo hoos galaysa madaxweynuhu wuxuu ku kacay fal oo ku muujinayo arintaas inuu qayb ka yahay
preventing course of justice waa case la yaqaano waa dembi la yaqaano qofkii is-hortaag ku sameeyo cadaaladda macnaheedu waxay ka dhigan tahay inuu qayb ka ahaa dembigaas madaxweynaha marka waxyaabaha lagu haysto ayay ka mid tahay oo aan runtii jeclaa lahayn inta uusan berrito khudbada jeedin inuu arrimahaas ka hadlo gaar ahaan saddexdan dembi ee isku sidkan inuu si gaar u dul istaago oo waxa uu ka og yahay oo sheego ayaa laga rabaa waxyaabo kale oo runtii xusid mudan waxaa ka mid ah canshuurta al-shabaab shantii sano runtii aad u xoogeysatay oo qof kasta ay ogtahay maanta maxkamadda al-shabaab ee cadaaladda kaliya la aado maanta iyadoo noqotay ayaa ka mid ah lagama gudbi karo dhinaca xiriirka caalamiga marka laga hadlaayo waxyaabihii dhacay shantii sano iyo barkii madaxweynaha saaxiibkiis abiy axmed wuxuu sheegay 4 dekadood in la siiyo sheegay madaxweynuhu arrintaas weli waxba kama dhixin baarlamaanka lama horgeynin dekaduhu ko ay kala yihiin ma naqaan waxa aan ku bedelana ma naqaan waxaan aragnaa marka xiriir dhow oo walaalnimo oo saaxiibnimo oo Itoobiya iyo Soomaaliya ka bilowday maalintii madaxweynaha la doortay ka horna uu noo sheegi jiray inuu Itoobiya ka soo horjeedo waxaa dhinaceeda haddana taala dalka aan walaalaha nahay isku dhiiganahay ee Djibouti ee dowladnimada aan maanta haysano runtii bayskeeda lahaa in maanta nologaga dhigay waa cadow oo jiritaanka Soomaaliya ka soo horjeedaan in madaxweynuhu noo sheego Itoobiya iyo Eritreana ay walaalo noo noqdaan runtii iyaduna waxay u baahan tahay madaxweynuhu inuu wax naga yiraahdo waxaan leenahay madaxweyne lagama gudbi karo arrimahaas waxay u baahan ka hadlid qodob kale oo muhiim ah waa caruurtii ayaa naga maqan 5,000 iyo dhowr boqol oo caruur ah oo loo sheegay qadar ayaa leedii wada ayaa la geeyay Eritrea 3 sano maqan yihiin hooyooyinka dhalay waa loo jawaabi waayay waxaa laga yaabaa walaalahood ayaa baarlamaanka aad rabtay inaad wax weydiisato ka mid ah waalidiintoodii iyo qoysaskoodii iyo dad kale oo muwaadiniin ee ka xun wixii dhacay ayaa baarlamaanka ka mid ah marka madaxweyne waxaan ka codsanaynaa adiga oon arrimahaas ka jawaabin gaar ahaan qodobkaas Eritrea iyo caruurta nooga maqan waxaan ka rabnaa inaad arrintaas wax ka tiraahdo waxaaba kale runtii aan xasuusan karaa waxaa ka mid ah madaxweynuhu wuxuu aad u soo nooleeyay dagaal beeleedyadii Soomaaliya ka jiray ee waa hore laga soo gudbay waxa arkaysaa laba qabiil oo Soomaaliyeed nacaybka ka dhaxeeya maanta u gaarsiisay sidii xilligii la joogay 91 iyo 92 oo wax runtii laga soo gudbay oo taariikh noqday ayuu madaxweynuhu abuuray oo waliba uu qayb ka noqday isagoo u danaynayo dhinaca qoyskiisa markii laga hadlayo Jubbaland ayuu madaxweynuhu qayb ka ahaa marka waxaaba kale madaxweynaha aan ka rabno inuu berrito khudbadiisa aan aad uga codsanayno inuu wax ka sheego waxa ka mid ah wuxuu ku tilmaanaaday oo ku magacawnaaday inuu doorasho diid noqdo oo uu ka soo horjeesto doorashadii oo isku dayo doorasho qof iyo cod been ah oo la doonayo 10,000 oo qofood oo qolooyinka loo yaqaano xoogga wadaniyiinta in meel la isugu geeyo ee isaga 99% ay siiyaan ayuu madaxweynuhu isku dayay markii laga diidana waa ogeedeen inta talaabo is-hortaag doorashada uu ku dhaqaaqay waxyaaba aan ka baranay waxaa kamid ah kursigan u xiran sida uu madaxweynuhu u sii wada dhacdooyinkaas isdaba yaalo waxay ku soo dhamaatay si qasab ah in lagu dhaariyo isagoo raali ka ahayn baarlamaankii intiisa badan isagu uu soo qortay in si jaajuub iyo diriq ah is-hortaag badan uu ku sameeyay in lagu dhaariyo kadibna ay ku soo xigsatay baarlamaanka in hoobiye lagu soo rido air conditionka in la xabadeeyo teendhadii afisoonaha loo guuro markii la yirina madaxweynuhu waa isaga adeegsada taliye ciidamada booliiska Xijaar oo halkaas is-hortaag lagu sameeyay xildhibaanadu waa ayaga gali waayay teendhadii subaxdii 8 o'clock dadkii soo baxay ayaa galabtii 3 o'clock 3 galabnimo waxay gaareen meel 10 daqiiqo loo soco karay madaxweynuhu marka waxaan ka codsanaynaa arrimahaas in aadan fududaysan jawaab aad ka bixiso sababihii keenay aad sharaxdo kadibna aad raalgelin naga siiso waxaa kaloo iidan aan la hilmaami karin madaxweyne muddo kororsi qasab ah 2 sano ah ayaa si ula kac ugu dhawaaqday sanadkii hore April 2022 bisha April marqaati uu kaaga noqday wadaan uu kaaga noqday Maxamed Mursal oo ahaa ninkii aad u dhiibatay baarlamaanka madaxweyne arrintaas lagama boodi karo ugu qaado malahan dhalinyarada Muqdisho badan kelmad ugu qaada leeraa taqaano taas kuma qaada karno madaxweyne ka jawaab muddo kororsigii noo cadeey inaadan dib dambe ugu laabanayn waxaad noo cadeysaa madaxweyne 4 sano lagu doortay sanadkii 6aad kala bar joogo oo waliba intaas la soo gaabiyo oo lagu qasbay in lagu soo koobo muddadaas
yaa caddaynaya yaa damaanad nooga ah haddii mar kale lagu doorto inaadan muddo kararsi galaynin yaa noo damaanad qaadaya inaadan doorashada diidaynin madaxweyne arrimahaas lagama gudbi karaan ku leenahay dhacdooyinka noocaas marka laga hadlaya waxaa ka mid ahayd weerarka aad ku qaaday dibadbaxayaasha oo runtii iyaduna ka mid ah qayb is-hortaag doorashada ah waxaa iyaduna xusid mudan oo aan laga gudbi karin waxaad noqotay madaxweynihii ugu horreeyey ee milkiile yeesho oo qaamuuska soomaaliga ku soo kordhiya ereyga la yidhaha milkiile annaga waxaan u naqiinay milkiilaha guriga ama kambaniga ama wax lamid ah laakiin milkiile madaxtooyadii ama madaxweynihii leh waa nagu cusub tahay adiga ka horna lama aqoonin madaxweyne marka ma adigoo milkiile xambaarsanaad noo soo socotaa mise waad xorowday ka jawaabida u baahan tahay ganacsiga waa ogtahay dhibka aad u geysatay canshuurta labaad iyo tan saddexaad ee laga qaado waa runtii culays adiga aan kaa horeyn xasan farmaajo oo walaalkaa ah oo isaguna ganacsi u xiran waa waxyaabaa nagu cusub madaxweyne ganacsada ah ama qoyskiisa ganacsi u xiran yahay madaxweyne jaadka etoobiya xalaal ah shacabka u sheegay jaadka kenya waa xaaraan qoyskayga bisaan ka ganacsanayo na yidhina adaa noogu horreysay dhinaca dhaqaalaha markaan ka hadlayno madaxweyne 45 milyan oo doolara maqan jawaabna waa loo waayey iyaduna waxay u baahan tahay inaad wax ka tiraahdo oo aadan ismoogeysiin 3 sanana xisaab xir lama siin taasna waa codsi inaadan hilmaamin lagaa codsanayo madaxweynuhu marka lama koobi karo dhacdooyinka dhacay 5 sano iyo 3 bilood runtii meel ka dhacay ku tahay xildhibaanada Soomaaliyeed adigoon arrimahaas ka jawaabin inaad tiraahdo kay doorta waa offense they are not idiot marka waxaa laga rabaa waqtiga lagu siinayo waa 15 daqiiqo 10 daqiiqo koobaad waa inaad naga siisaa sharaxaad shacabku ay kugu aqbalaan qodobada aan hadda soo qaaday faraha badan lama koobi karo waa badan yihiin waqti badan qaadanaysa haddaan dhahno waa soo akrinaynaa ilaa iyo 200 oo kays ayaa dhacday laakiin dhowr kamida ayaan hadda soo gudbiyey codsigaynu marka ama sida gaarka ah aan madaxweyne uga codsanayo waxay tahay inuu arrimahaas jawaab ka bixiyo si looga fikiro in cod la siinayo in kale way maalmahan saaxada siyaasadda waxaa ka maqan Fahad sidee u aragtaa Fahad runtii waa ninka hadda aan sheegayno oo madaxweynaha shirkada la noqday oo milkiilaha la baxay oo la baxay wuxuu la baxay wax la yiraahdo magacyo aan runtii la qaadan karin oo Soomaaliyeed ku wanaagsanayn waxba la kanaga aan ka xusi karaa waxa kamid ah Fahad wuxuu nabaray ama uu ka dhigay hay'adda nabad sugidda Soomaaliyeed laan yar ama hay'ad yar oo ka tirsan nabad sugidda qadar hay'adda nabad sugidda maanta dalka waxa ka socda sida canshuuraha iyo maxkamadaha ay shabaabku ay muqdisho dhinacyadeeda ka sameysteen iyagu garsoorkii waddanka qaada nabad sugidda warka ma hayso waxay wax badan ka hayaan oo xog ogaal u yihiin siyaasiyiinta Soomaaliyeed mid kasta taageerayaasha u haysta cidda u tagta iyo cidda ka soo laabata shaqada uu qabto fursadda uu leeyahay waxa kaliya ay nabad sugiddu ka shaqayso Fahad Yaasiin uu gaarsiiyey waa intaas marka Fahad waxaan dhihi karnaa mukhaabaraadka khadar wax nooga wanaagsan oo qaban karta ayaa la hayay 4 sano ee aad meeshaas joogtay waan ku fashilantay laakiin waxaan ilaahay ku mahad celinaynaa Fahad inuu maanta na dhaafay oo taariikhda uu galay moogiye aan hadda wax kale noo hayn arintaasna waxaan rabaa inaan hilmaamin si gaar ah waxaan ugu mahad celinaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Rooble oo runtii door weyn ka ciyaaray ninkaas dambiilaha ah inuu soo waddanka ku soo laaban oo san milkiile noo noqon mar kale xilkan madaxweynenimo waxaa isu soo sharaxay musharaxiin badan oo raadinaysa in ay xilka qabtaan sidee u aragtaa tirabadnidooda maxaadna kula talin lahayd runtii waa badan yihiin murashaxiintu waa markii noogu horreysay aragno numberkaas aad u tirada badan waxayna ila tahay waxaa keenay baahida loo qabo markii la arkay isbedel in la sameeyo ayaa murashaxiintu waxaad moodaa inay aad u badan yihiin marka waxaan rabaa murashaxiinta inaan hal talo muhiim u soo jeediyo maanta taasoo ah markii la gaaro washamsiga wareegga labaad washamsiga waa in bisinka lagu bilaabo waa in aad loogu fiirsado waa inaan la gelin qaladkii hadda ka hor la galay oo kale waa in la dhigo washamsiga meel sax ah qof wadani ah qof aan milkiilo wadan sida farmaajo kale waa in la doorto qof madax bannaan qof wadani ah qof aan been iyo qab iyo maxaa la yiraahdaa CBB aan wadan waa in la doorto waxaan waliba rabaa inaan si gaar hoos uga xariiqo waxaa jira dad uu ku dhex jiro farmaajo
dad uu ku dhex jiro Fahad Yaasiin dadkaas waa in aad looga fikiro waa dadka la soo shaqeeyay 3 sano barkii waa dadka isku xiraayeen waa dadka isla asaaseen CBB-ga waa dadka dambiyadii aan soo xusnay intooda badan ay isla soo wada galeen mar rabna marka maalinta Isniinta inaan shalayno waxaan rabnaa marka si loo damaashaado si loo farxo haddii ay timaado wareegga labaad ee Warshamsiga la soo gaaro Warshamsiga meesha la dhigayo waa in aad looga fiirsado ugu dambeyn waxaan rabaa madaxweyne Farmaajo aad ugu dheeraatay sababtuna wax kale ma ahan maadaama isaga hadda madaxweynihii u dambeeyay uu yahay maxaa tala ah oo Farmaajo u jeedin lahayd bismillaah waxaan rabaa madaxweynaha inaan weydiiyo ama aan u soo jeediyo horta talo ma qaadanayo oo haddii uu talo qaadanayo maanta meeshuu joogo lama joogeen isagu lama joogeen waddanku lama joogeen madaxweynaha marka waxaan kula talinaa cafis ha weydiisto ummadda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka labadaba midda labaad in madaxweyne u soo jeedinayo haddii cafiskaas uu ku adkaado ama laga aqbali waayo madaxweynaha waxaan kula talinaa mudane madaxweyne dhuumo maalintaas iska maqnaaw ha ka caqli yaraanin saaxiibka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan telefoonada iska danso ha imaan adigoo ceebaysan oo dhulka lagu jiidayo mar rabna inaan aragno mudane madaxweyne haddii aad aragtay inaan dadkaani ku rabin haddii aad keeni weysay wax qabad ah milestones iyo waxtar aad samaysay 5 sano iyo 3 bilood ha isceebayn waxaan kugula talinaynaa maalintaas iska baaqo iska danso telefoonadaada cudur daaro raadso waa heli doontaa waxaad ku cudur daarato qaabkaas ayay ugula haboontahay waa haddii uu tala iga yeelayo waxaan kaloo rabaa inaan taas uga faa'iideysto madaxweynuhu haddii ay dhacdo inaad doorashada timaado ee lagaa guulaysto waxaa lagaa codsanaa inaad aqbasho natiijada doorashada waxaan iidan rabaa inaan kelmad kale u raacsiiyo taliyaasha ciidamada gaar ahaan xijaar oo aan leeyahay xijaar waxa ceeboobeen mar labaad dhowr jeer oo horaad ceebowday mar rabno inay maradu ka dhacdo ha isku dayin in instructionka uu ku sii doono Maxamed Cabdullaahi Farmaajo daahin ciidamo la adeegsado in wax la qaso tii dhacday maalintii la dooranayo gudoomiyaha baarlamaanka oo kale ha isku dayin shaatigaaga nadiif ah waddankan ka tagan kula talinaynaa way aad iyo aad waa mahadsan yahay Axmed Nuur Guuleed oo ah siyaasi Soomaaliyeed oo nala falanqeynayay arinta ku saabsan doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo xilligan hawsheedii ay socoto waa uga mahad celinaynaa waqtiga uu ku bixiyay wareysigan ee uu noogu ogolaaday in uu yimaado maaragtay studio oo aan ku casuunay iyo wareysiga intii uu socday aad iyo aad waa mahadsantahay Axmed Nuur